bishan inagu soo fooda leh 21-keeda waxaa qabsoomi doona ciyaaraha koobka qaaradeena Afrika kaasoo ka qabsoomi doona dalka Masar. bishii koowaad 24-keedii sanadka 2014 ayaa waxaa tartamay ilaa 6 wadan oo rabay in dalkooda lagu qabto tartankan koobka qaarada ee sanadkan 2019. wadamadaas oo kala ahaa dalka Nigeria, Senegal, Kenya iyo Uganda oo rabay inay labadooda dal si wada jir ah ugu midoobaan qabashada koobkan 2019. sidoo kale Malawi, Zambia iyo Zimbabwe ayaa iyaguna rabay inay ku midoobaan martigelinta koobkan. sidoo kale Guinea Bissau, Liberia, Sierra Leone ayaa iyaguna rabay in ay si wada jir ah koobkan ugu midoobaan. balse guddiga ayaa dib u riixay muddadii loo cilaamiyey si ay guddi dabagal ah loo sameeyo waqti dheeri ahna loo siiyo. codkii kama dambaysta ahayd ayaa la qabtay bishii 9aad 20-keedii sanadkii 2014 ayay guddigu ku dooratay in 2019 ay Cameroon assuumi doonto koobkan qaaradda ee 2019 iyadoona Cameroon dabcan ka mid ahay wadamada u tartamay martigelinta koobka. balse dabcan ay guddigu calaamad saareen inay Cameroon ay qabato koobka 2019 halka koobka 2021 ay qabato dalkaasi Ivory Coast iyo 2023 u martigelin doono dalka Guinea. iyadoo la isku ogaa in dalka Cameroon martigelinayo tartankan markeedii 1972 dabcan sanadkii 2017 mise tartankii ugu dambeeyayna Cameroon loo caleema saaray koobkan ayay guddigu 30 bishii 11 ee sanadkii tagay ee 2018 magaaladaasi Accra ee dalkaasi Ghana ku soo gudbiyeen bayaan ah in weli Cameroon kaabayaashii looga baahnaa ayna dhamaystirin. sidoo kalena amni darro dhanka ah ay jirto oo la xidhiidha dabcan Boko Haram. sidaas ayayna guddigu bishii 14-keedii 2018 ay shaaciyeen inay aqbali doonaan dalal kale oo martigeliya tartanka. markan South Africa iyo Masar ayaa dabcan tartamay. ugu dambeyntii guddiga ciyaaraha koobka qaaradda Afrika ayaa ku kulmay magaalo madaxda dalkaasi Senegal ee Dakar bishii koowaad 14-keedii ee sanadkan 2019 kuwaas oo 18 cod 16 ka mid ah ay Masar heshay halka hal cod ay South Africa heshay iyo cod laga aamusay. dabcan sidaasna ayay Masar ku martigelisay koobkan markeedii 5aad taasoo ka dhigaysa inay Masar tahay dalka ugu martigelin badan koobkan qaaradeena Afrika ee ka kooban 55 dal. markii ugu horeysay ay martigeliso dabcan dalka Masar waxay 1959 markii labaad ahayd 1974 mise 74 markii saddexaad ahayd 1986 mise 86 markii afraad ahayd 2006 iyo hadda sanadkan 2019 oo ay martigelin doonto markeedii 5aad. Masar koobkan waxay ku guuleysatay 3 jeer 4 mar ee hore ay martigeliso taasoo ay 1959 1986 iyo dabcan 2006 ugu dambeysay inay martigeliso welibana markaasna ku guuleysatay. hada waxay taageerayaasha reer Masar mise muwaadiniinta dalkaasi Masar iyo weliba taageerayaasha caalamka ee taageera dalka Masar ay indhooda wada hayaan waa ku guuleysashada koobkan markoodii afraad 5 mar oo ay martigeliyaan iyo welibana markoodii 8aad guud ahaanba tartankan koobka qaaradeena Afrika. maxaa ka cusub koobkan? waxaa ka cusub koobkan lambar 1 si aan ku bilaabi doono qodobka koowaad. koobkan ayaa la qaban doonaa waqti mise bil cusub oo ka duwan waqtiyadii hore loo qaban jiray. waqtiga aan idhaahda hadda la qaban doono ayaa ah bisha 6aad ilaa bisha 7aad halka awal la qaban jiray bilaha koowaad iyo weliba 2aad taas oo ku adkay ciyaartoyda naadiyada reer Yurub inay ka soo qayb qaataan tartankan koobka qaaradda Afrika. dabcan
sanadkan ayaa dabcan waxay u bedeleen waqtiga samarka mise xagaaga. sidoo kale qodobka labaad waxaa la kordhiyay wadamada koobkan ku tartamaya. awal mise tartamadii kan ka horeeyay waxaa ku tartami jiray 16 wadan, balse tartanka 2019 ayaa 24 wadan laga dhigay, taas oo 8 wadan lagu soo kordhiyay. qodobka saddexaad sidoo kale waxaa lagu soo daray koobkan FAR, muuqaal caawiyaha siidhawadaha, kaas oo dabcan ka caawiya siidhawadaha in uu go'aan saxsan u gaaro. FAR ayaa lagu soo daray tartankan wareegasteeda. qodobka afraad 15 sano kadib 8 tartan ee ugu dambeysay Kenya oo muuqeeda la waayay ayaa tartankan mar kale muuq ka soo teey, iyadoo ay tartankan ciyaari doonto. sidoo kale Tanzania oo 40 sano kadib ka soo muuqan doonta, iyadoo 20kii tartan ee ugu dambeeyay la lacaa. Burundi, Madagascar iyo Mauritania ayay nolol cusub u bilaaban doontaa, iyadoo nolosha cusub soo dhaweeyay. gruubka ugu horeeya mise group A waxaa ku wada jira waa wadamada Masar oo markan rabta inay koobkan hanato tan iyo 2010. DRC Congo mise Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyana rabta inay koobkan qaado markeedii 20 iyo 1974. Uganda iyo weliba wadanka Zimbabwe ayaa iyagu kula jira group A wadamada Masar iyo DRC Congo. Group B ayaa iyaguna ku wada jira waa wadamada Nigeria oo rabta inay hanato koobkan markeedii 3 tan iyo 2013. wadanka Guinea oo iyana rabta inay koobkan qaado markeedii 1. waxaa sidoo kale Nigeria iyo Guinea kula jira waa wadamada Madagascar iyo Burundi oo markan bog cusub ka bilaaban raba koobkan. mise gruubka saddexaad waxaa ku wada jira iyaguna waa wadamada Senegal oo iyaduna rabta inay koobkan hanato markeedii 1 taariikhda. Algeria oo iyana rabta inay koobkan hanato 1990 aan idhaahdeen. Kenya iyo Tanzania oo anteenadu ka maqnayd sanado badan ayaa gruubkan kula jira wadamada Senegal iyo Algeria markii anteenadoodii ay dib u heleen. Group D ayaa iyaguna ku wada jira waa wadamada Morocco oo rabta inay koobkan qaado. Ivory Coast oo iyana rabta inay koobkeedii 3 hanato tan iyo 2015. South Africa oo rabta inay hanato koobkeedii 20 iyo 1996. Namibia oo iyana ku soo laabatay saaxadda koobkan tan iyo 2008. Group E waxaa ku jira waa wadamada Tunisia oo iyana rabta inay koobkeedii 2 hanato tan iyo 2004 oo welibana markaasi ay martigelinaysay. Mali iyo Mauritania oo iyaduna raba inay koobkan qaadaan, iyo weliba Angola iyana rabta inay qaado koobkeedii abid ugu horeeyay. Group F oo ah gruubka ugu dambeeya ahna gruubka 6 ayay ku wada jiraan waa wadamo runtii aad u culus oo dabcan qaaradda Afrika aad looga dambeeyo. waa wadamada Cameroon oo dabcan rabta inay koobkeedii 6 hanato tan iyo 2017. Ghana oo iyana rabta inay koobkeedii 5 hanato tan iyo 1982. Benin iyo Guinea Bissau oo iyana raba inay koobkan dabcan qaadaan markoodii ugu horeeyay taariikhda. ugu dambeyntii dabcan anigoo soo qaadan doona 7 wadan aan isleeyahay dabcan waa 7 wadan ee adag qaaraddeena Afrika marka ay timaado kubadda cagta. dabcan waa Black Stars, waa xidigaha madow. dabcan waa dalkaasi Ghana maroodiyaasha waa dalkaasi Cote d'Ivoire misaan idhaahda Ivory Coast. dagaalyahanada saxaraha waa dalkaasi Algeria. fircooniinta waa dalkaasi Masar. The Indomitable Lions mise libaaxyada aan la looyin waa dalkaasi Cameroon. Super Eagles dabcan gorgoriinta waa dalkaasi Nigeria iyo welibana
libaxyada reer Teheraan waa dabcan dalkaasi Senegal waxaan sidii karaa toddobadan wadan waa toddobada ugu tunka culus loona saadaalinayo in ay dabcan qaadaan koobka sanadka 2019 ka furmi doona qaaradda Afrika intaas ayaan ku soo koobayaa fiidiyoga. Assalaamu calaykum.